waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalaha qaali kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka indhaha, ilagjarada indhaha, ilagjarada caafimaadka indhaha ku saabsan. Hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka hadlaynaa maadada ocular anatomy and physiology. Cashirkeena afraad maanta hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka hadlaynaa cornea. Hore waxaan uga soo hadalnay layerka kood, waxaan kaga soo hadalnay layerska isha ay ka kooban tahay, inta xabo ku jirto kaga soo hadalnay outer layerka iyo middle layer, inner layerka, iyo waxa shaqada ay qabanayaan. Sidoo kale orbitka godka ishaan kaga soo hadalnay, walliska uu leeyahay, inta meel uu furaya, muscleska maro, lafaha uu ka kooban yahay, guud ahaan ka soo hadalnay. Sidoo kale waxaa kaloo ka soo hadalnay muscleska indhaha anaga soo kala qaadnay muscles oo banaanka ku yaala oo extraocular muscles loo yaqaan iyo intraocular muscleska. Waxaan ka soo hadalnay shaqada ay noo qabtaan, meesha ka soo baxaan, meesha ay galaan, waxa qoodii nerviyaashaas, shaqada koowaad, labaad, saddexaad ay noo qabanay. Guud ahaan waa ka soo hadalnay hadduu ilaahay maanta hadduu ilaahay waxaan ka hadlaynaa cornea. Corneada waa qayb ka mid outer layer waa ka soo hadalnay, waa layer ka mid layerska isha, waa qaybta koowaad, waa avascular, waa xidid ma laha. midda koowaad meel inaad ku qoratid waa su-aashaan hadhow soo laaban doontaa markaan innervationka ka hadlayno, markaan waxa qoodiyo, meesha qoodinta waxaas ka hadalno. Avascular waxaa la dhahaa xididna ma laha. Corneada ma laha xidido, haddaysan xidido ay lahayn nerve supply meesha. Marka waan ka hadli doonaa hadduu ilaahay. Shaqada ay qabato maxaa marka? Laba shaqo ay noo qabataa, saddex shaqo ay qabataa. Shaqooyinkeeda ugu weyn ee isha noo qabato waa optical, inaan si fiican wax u aragno. Ilaahay qofka mu ku sababay haddii corneada problem yar ay ka gaarto, qaybaha dambe dhanna way mataqaana isha qaybtaas bas haddii qofku ay wax ka gaarto, qaybaha kale dhan wax ma taraa. isha haddii qaybta kale dhan u fiican tahay, xataa qaybtaas yar haddii dhaawac ama dhibaato ay kasoo gaarto, qaybaha kale dhan dhibaataa soo gaaraysa oo isha dhan wax si fiican markas. Waa qaybta ugu horeyso ee iftiinka isha soo gala ee la kulmaysa. Marka waa mataqaana optical inaa wax si fiican. Sidoo kale refraction of light, iftiinka ay qaluucisaa, iftiinka isha soo gala ayay qaluucisaa. Inta u qaluucinaysaa ratiinaha, qaybta dambe ee isha ay toos u geynaysaa. Awoodda ay ku geynaysaa waxaa loo yaqaanaa awoodda geynaysa waa powerka ugu badan oo 43 ilaa 42 ilaa 45 ay la gaarsiiya, 42 43 45 diopter ay gaarsiisaa. sidoo kale protection ay ka qayb qaadataa, laakiin shaqada ugu weyn oo optical iyo refraction waa. Marka waxay ka kooban tahay 5 layer ay ka kooban tahay. Layerka koowaad waxaa loo yaqaanaa epithelium waa layerka koowaad, waa kan xuubka kore layerka koowaad. sidoo kale Bosman layer, sidoo kale stroma waa the strong and the largest layer, waa layerka ugu weyn oo 5 layer midka ugu weyn waa. sidoo kale layerka saddexaad waa stroma. layerka afraad waxaa loo yaqaanaa descent layer. ugu dambeyntii layerka shanaad waxaa loo yaqaanaa endothelium layer. Dimensions of cornea waxay leedahay anterior surface, qaybta hore ee anterior surface waxaa la dhahaa qaybtan hore, surfaceka qaybtan koowaad la dhahaa. Posterior surface qaybtan dambe la dhahaa. Anterior surfaceka waxaa u kala qaadina marka horizontal iyo vertical u kala qaadina. Anaga horizontal oo mataqaana horizontal jiif ama istaag oo vertical ana u kala qaadina duulada. Horizontal vertical markii laga hadlayo waxay gaaraysaa 11.7 mm ay gaaraysaa, halka horizontalka oo saa markay tahay horizontalka waxay gaaray 10 mm 10.6 mm. Posterior labada dhinac markii la fiiriyo anterior vertical iyo horizontalka waa 11.7 mm. Thickness adkaanteeda waxay gaaraysaa centerka waa aad ay u jilcan tahay. centerka aad ay u jilcan tahay. sababta ay centerka u jilcan tahayna waa iftiinkaas ay gudbinayso. waa iftiin haddii meeshaas adkaan lahayd, centerka haddii adkaan lahayd, waxaa dhici lahaa iftiinka inuu zaaid uusan u gaarin meeshii loogu talagalay ay ratina. marka centerka aad ayuu yaraya, wuxuu gaaraa 0.52 mm. sidoo kale peripheralka ku adag yahay. peripheralka wuxuu 0.67 mm. surfaceka guud ahaan ay ku fadhiso waa 1.3 cm 1.3 cm oo centimeter square waa. Radial curvature marka laga hadlayo anterior iyo posterior loo kala qaado. Anterior 7.8 mm halka posterior uu yahay 6.5 mm. Epithelium mid ugu soo hadlayna layerska 5 layer
ee leedahay mid mid aan ugu sii hadlaynaa shaqada ay noo qabato iyo faa'iidada uu leeyahay. midka koowaad epithelium layerka waa stratified markii laga soo hadlayo markii laga hadlayo connective tissue markii laga hadlayo waa stratified, waa wax saan camal waa. sidoo kale squamous oo non keratized waa keratin oo non color la-aan waa, waxayna ku xiran tahay continuum, waxay ku tahay conjunctiva, toos ay ugu xiran tahay conjunctiva aan kasoo hadalnay waa xuub ku dahaaran scleraha markii layerskan kasoo qaadanay. sidoo kale laakiin ma laha goblet cells. goblet cells waxaa lahaa waa layer waa cells ka qayb qaata markii lasoo deynayo ilinta qaybteeda mokodka cells la soo deynayo qayb qaata ma laha, laakiin qaybtaasi ma laha. waxay ka kooban tahay epitheliumka naftirkiisa wuxuu kasii kooban yahay 5 ilaa 6 layer ayuu ka kooban markii loo fiiriyo anterior posterior. kan labaad waxaa waaye bone marrow layer waa acellular waa, asigana ma laha xididda, ma laha acellular cell, ma laha acellular xidid mahane cell ma laha, acellular waa, waana homogeneous waa, shan gees waa. stroma waa the largest layer waa on strong layer waa. stroma layer wuxuu gaaraa 5 regular oo arrangement waa 500 oo regular arrangement lamina waa 500 oo lamina isku xixiga waa. sidoo kale protection produced wuxuu soo productionkaas stroma layerka asiga production wuxuu soo saara collagen waa maado oo collagen taas oo adkeynayso oo mataqaana qaybtaas oo mataqaana layerkan sidoo kale protoglycan during markii lagu jiro development, qof markii oo development ish ay sameynayso markuu qofka dhashay ilaa 8 sano kasoo gaarayo ayaa la soo saara labadan maado. sidoo kale waxaa kaloo jiro descent layer waa layerka afraad posterior limited layerkiisa wuxuu gaaraa 2 ilaa 4.5 mm waa strong, wuu adag yahay oo resistance sheet bac oo adag waa, bac oo xeer adag waa. wuxuuna aad ugu dhow yahay qaybta ugu dambeysa ee endotheliumka ayuu ku xogaa. laba loo kala qaadaa marka anterior iyo posterior, anterior descent layer iyo posterior descent layer alla. anterior descent layer guud ahaan layerka 3/4 meel ka mid waa all development asiga wuxuu develop waxaa la sameeyaa anterior at 5 months qof markuu 5 bil uu jiro cunuga ayaa la sameeyaa, halka posterior asiga la sameeyo oo 2 meelood meel ka mid aan dhehna markuu qofka u dhasho after birth, markuu saas qofka u dhasho ayaa la sameeyaa. endothelium layer ugu dambeeya 5 layer waa single layer waa hal layer bas waa. kuwa hadda waxaa kasoo 6 layer ka kooban tahay 7 layer 5 layer soo dhihin kan like hal layer bas waa, waana hexagonal waa. hexo waa 6 waa oo keyboard cells waa. 5 layer intaas kusoo gabagabeyn. blood supply ma laha, sababta u lahayn maxaa waa avascular waa, xidid ma balahaba. isha haddii cornea ay xidid ee lahaatana borbalami dhibaato badan ka imaanay, marka avascular waa xidid ma laha. soo marka intee ka heshaa marka intee nafaqada iyo waxaas dhan ay ka heshaa, waxay ka heshaa oxygenka, waxay ka heshaa hawadan anaga aan sanka ka qaadanayna ay cornea ka qaadataa. tusaale ahaan waxaa jiro mataqaana dad markay basasha ay jarjarayaan dhahayaan indhaha xanuunay, waxa sababayo oo qofkaas indhaha la xanuunay waa qaybtan hore ee isha ugu muhiimsan sensitivity oo oxygenka qaato waa. sidoo kale nerve supply ay leedahay. nerve supply maxaa waa nerve sensationka waa qaybta ugu dareenka badan indhaha waa. indhaha bas ma ahan xataa waa qaybta ugu dareenka badan jirka waa. xataa lama awoodo qofka gacantiisa inuu ku taabto cornea waa nerve sensation. waxaana mataqaana ka heshaa ophthalmic artery asoo loo soo marsiina anterior ciliary nerve. cornea innervationkeeda layeradeen intaas kusoo gabagabeynayna hadii la yiraahdo. waa idinkaga mahadcelinaya daawashada video. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.